dhawaan ay ahayd markii ciidamo horkacay wasiir dawladii hore ee amniga maamulka Khaatumo Faysal Maxamed Xasan Falalug oo dhawaan madaxweynaha Khaatumo xil ka qaaday ayaa markii ugu horeysay saxaafadda kula hadlay degmada Boocam ee gobolka Sool halkaas uu ku soo bandhigay qalab ay ka furteen ciidamo hogaaminaya ka sameeyeen gudaha magaalada Laascaanood gaar ahaan dugsiga Muuse Yuusuf Horaanti bishan ay taalay sanduuqyada komishanka doorashooyinka Soomaaliland sidoo kale waxa wasiirku halkaas ku gubay warqadihii cod bixinta ay ka qaateen gudaha magaalada Laascaanood taasoo ku sheegay in lagu qaldayo shacabka gobolka Sool Sanaag Yacayn isagoona markaasi ka warbixiyay qaabka ay ugu hirgashay in hawlgalkaasi ka fuliyaan qaybo kamid ah gudaha magaalada Laascaanood wasiirku waxa uu sidoo kale ka hadlay mid kamid ah maxaabiis lagu soo qabtay qalabkaas oo ku sheegay inay sii daayeen sabab la xidhan maxaabiis u xidhan reer Khaatumo isagoona wasiirku arrimahaasi ka hadlay waxa hadaladiisa kamid ahaa hawlgalkii ay ciidanku ku sameeyeen diiwaangelinta Laascaanood xaruntii komishanka guud ee gobolka qalabkeedii indhiinaad ku aragtaan ciidamada tan iyo qaybo kale ciidamada ka tirsan waxay ku guuleysteen ilaahay ku galaday inay gacanta ku soo dhigaan dhammaan gobolka Sool inaanu soo bandhigno iyadoo aanu gubayno oo aanu cadawga dhaxal kaga jibino waxay oran doonaan oo ay caalamka iyo dadweynahoodaba been ugu sheegi doonaan codayn baa ka dhacday deegaamadaas Cayn iyo Sool waxaanu cadaynaynaa inaan arrintaasi wax ka jira aysan jirin 60,000 ama 70,000 bay sheegan doonaan inay ka codeeyeen haddii ay taasi jirto sida gobolada kale oo codayntu ay ka shaqaysay ay xafladaha ugu dhigayeen bay ugu dhigi lahaayeen taasi waa makhraati waxay ku soo qabteen ciidamada tani askartii ilaalinaysay qaybo kamid ah sida sarkaalkii haystay xarunta bulshada reer Boocame wax garadka bulshada qaybaheeda kala duwan wada tashi aanu la sameynay waxay noo soo gudbiyeen inaanu bilowno inaanu maxbuuskaas xornimadiisa u sii dayno oo aanu furno line cusub anagoo aan waxba yeelin baladayn rag ka tirsan deegaamadan Sool iyo Sanaag Yacayn ay ku abaajiyeen jeelashooda waanu ogeyn munaasibna way ahayd inaanu haysano balse waxaanu furnay wada cusub oo aanu ku furayno arintani way socon doontaa inaanu maxaabiista isku dhaafsano haddii ay arinta ka jawaabi waayaan oo ragga iyaga ku abaajiyay oo siniin mininka jeelashooda ku jira ay soo dayn waayaan waxa la yiri hawshani way soconaysaa waxa la yiri caana xundhigato adna ku murugid dhinaca kalena waxa wasiirku ka hadlay xilka qaadisu madaxweynaha maamulka Khaatumo Professor Cali Khaliif Galeed uu ku sameeyay qaar kamid ah golaha wasiirada Falalug qayb ka yahay xilka qaadis uu sameeyay madaxweynuhu Cali Khaliif aniga iyo xubnaha aad iyo aad baan arrintaa ugu qanacsannahay maadaama aanu xilka madaxweynuhu naga qaaday shaqada tan iyo kuwii ka horreeyay wayna qanacsaa haddii ay makhraati noo furtay inaanu bulshadeeda wixii aan ugu dhaaranay aanu ka shaqeynayno xilkiina aanu ku weynay aad bay noo qanacsaa bal hadda xagga kale bulshada reer Khaatumo waxay u furtay makhraati cad oo meesha wax loo wadaa amase odaygu hayaanka uu geliyay oo reerka ugu raray meesha laba deegaanka bay cadaysa xilka qaadistan lagu sameeyay wasiir dawladda amniga iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo ayaa ku soo beegmaysay xilli wada hadal u socday maamulada Khaatumo iyo Soomaaliland ha yeeshee madaxweynaha maamulka Khaatumo iyo xubno kamid ah xukuumaddiisa oo haatan shir uga socdo magaalada Balcad oo sida la sheegay inay tahay sidii loola hadli lahaa Soomaaliland ayaa xilka looga qaaday labadan wasiir waxaana hadal haynta ugu badan ay ahayd xilka qaadistooda in loo aaneeyo qalalaasa ay ka galeen wada hadallada u bilowday Khaatumo iyo Soomaaliland Maxamed Ahmed Jaamac Maxamed Bidaanshe telefishinka caalamiga ee Kalsan degmada Boocam ee ka tirsan gobolka Sool